asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada qodobada wararka caalamka kuwoodii ugu waaweynaa xilligan aan idin hayno waxaana ka mid ah mudaharaadyada ka dhanka xasuuqa gaza oo weli ka socdo qeybo ka mid ah caalamka dalka australia oo banaanbaxyadu ay ruxeen magaalooyin waaweyn iyo kuuriyada waqooyi oo tijaabisay 2 gantaal qodobada iyo qodobo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa waa maalinimo axada taariikhduna ku beegan tahay 24 bisha 8 ee Agoosto sanada 2025 kusoo dhawaada faahfaahinta wararkaasi aynu ku horreynay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ay maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ay hore ugu jartay warqadii lagu xidhi lahaa ayaa wajahaya cadaadis sii kordhaya oo ku aadan xabad joojin iyo in la sii daayo maxaabiista weli ku sugan Gaza isla markaana la soo afjaro dagaalkaasi bulooyin wada hadallo dadban ay ka soconayeen halkaasi oo xabad joojin ku saabsan oo u dhaxeeyay Israel iyo sidoo kale Hamas ma jiro wax natiijo ah oo ka soo baxay xabad joojintaasi warbaahintu waxa ay sheegtay in xubno ka tirsan xukuumadda Netanyahu oo ka tirsan xag jirka midigta fog ay si xoog leh uga soo horjeedaan heshiis lala gaaro Hamas iyadoo wasiirka maaliyadda ee dalkaasi uu sheegay ehelada maxaabiista in uu isaga bixi doono isbahaysiga talada haya haddii Netanyahu ogolaado xabad joojin maalmo ka hor wasiir lagu magacaabo Orit Strock oo ka tirsan xukuumadda Netanyahu ayaa sheegtay inay taageersan tahay in la sii wado dagaalkan iyo howlgallada ka soconaya Gaza xitaa haddii ay keento dhimashada maxaabiista gacanta ugu jira Hamas hadalkaasi ayaa waxaa cambaareeyay guddiga qoysaska maxaabiista gacanta ugu jira ururka Hamas qiyaastii 50 maxaabiis oo Israa'iiliyiin ah oo ku jira Gaza 20 ka mid ah ay weli nool yihiin dhanka kale in ka badan 10,800 oo Falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsiyada Israel halkaasi oo ay ku ildaran yihiin isla markaana ay la kulmeen jirdil gaajo iyo sidoo kale dhibaatooyin caafimaad oo ay ka dhaxleen xabsiyadaasi kuwa oo qaar badan ay ku dhinteen halkaasi sida ay sheegeen warbixinada xuquuqda aadanaha dhanka kalena hogaamiyaha xisbiga mucaaradka National Union Benny Gantz oo ah siyaasi mucaarad caan ah ayaa sabtidii soo jeediyay in la dhiso xukuumadda samata bixinta maxaabiista muddo 6 bilood si loo fududeeyo heshiis in la gaaro waxa uu horey u soo noqday ninkani wasiirka difaaca ee xukuumadda Netanyahu waxaana uu ka baxay sanadkii 2024 sabab la xiriiro khilaaf ku aadan arrimo dhowr ah shir jaraa'id oo uu ku sheegay in haddii Netanyahu uusan ogolaanin heshiiskaasi in ay ogaan doonaan in wax walba ay ku kaceen Israa'iiliyiinta sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka indhergaradka ee falanqiyaarimaha siyaasadda Netanyahu ma ogolaan doono soo jeedintaasi maadaama uu ka tirsan yahay taageerada xulafada xag jirka midig sida Smotrich si uu siyaasiyiin badan uga badbaado waxa uu sheegay in xukuumadda midaysan ay shaqada ku bilaaban doonto heshiis lagu soo celiyo 50 maxaabiis oo weli lagu hayo Gaza kuwa oo 20 ka mid ah laga rumaysan yahay in weli ay nool yihiin waxaana uu intaa ku daray in taniyo kadib doorashooyin cusub lagu qaban doono sanadka soo socda taariikhda si wada jir ah la isla garto dhankiisa wasiirka amniga gudaha Israel Ben Gvir ayaa ka jawaabay hadallada Gantz isagoo sheegay in ay arkeen farqiga u dhaxeeya dawladda ay ku jirto Gantz iyo mid aanay ku jirin oo ku saabsan Iran, Lebanon, Suuriya iyo sidoo kale Rafah ninkani waxa uu muujiyay in si weyn uga soo horjeedo siyaasadaha Gantz dawladda dhexe iyo waxa uu yeeray tanaasulaadyo loo sameeyay Hamas isagoo ku adkaystay in guul laga gaaro howlgallada imika socdo arrintan ay imaanayso iyadoo qoysaska maxaabiista Israel ay ka cabsi qabaan mustaqbalka carruurtooda haddii xabad joojin la'aan ay jirto waxayna ugu baaqeen dawladda inay heshiis gaadho iyagoo ka baaqaya nolosha carruurtooda ee gacanta lagu hayo qoysaska maxaabiista Israel waxay dalbadeen in la joojiyo rabshadaha magaalada Gaza ka hor inta aysan keenin dhimashada wiilashooda iyagoo ku eedeeyay Netanyahu in uu wiilashooda u diray inay ku dhintaan dagaal horey u gaaray ujeedadiisa maalmo ka hor Hamas ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in Netanyahu iska indhatiray soo jeedinta dhexdhexaadayaasha isla markaana uu samax jawaab ka bixin taasi oo cadeynaysa inuu yahay caqabada dhabta ah ee heshiis kasta oo dan ka lahayn nolosha maxaabiistiisa isla markaana uusan dhab ka ahayn soo celintooda waxa sidoo kale ay ugu baaqday dhexdhexaadayaasha inay cadaadis badan ay saaraan Israel si loo joojiyo dambiyada xasuuqa iyo gaajeenta ama macluusha lagu hayo reer Gaza waxayna ku eedeysay ciidamada gumeysiga ee maamulka Mareykanka mas'uuliyad buuxda oo ka dhalan karta howlgalladaasi waxaa mudan in la xuso in Masar, Qatar iyo Mareykanka ay dhexdhexaadinayaan wada xaajoodyadan u dhaxeeya Israel iyo Hamas si loo gaaro xabad joojin
wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallo dadban oo labada dhinac oo lagu qabtay Dooxa oo ay hogaaminayeen dhexdhexaadayaasha ayaa socday toddobaadyo ka hor inta aan la soo gabagabeynin 25 Luulyo iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin. 10,000 oo u dhashay ama ka mid ah muwaadiniinta reer Australia ayaa ka qayb galay banaanbaxyo lagu taageerayay Falastiin Axaddii iyadoo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Australia uu sare u kacay isla markaana uu aad markaasi madmadow fara badan soo galay labadan dal kadib markii Australia ay sheegtay inay aqoonsan tahay Falastiin iyadoo xukuumadda garabka bidix ay ku dhawaaqeen aqoonsiga dowladda Falastiin. Ururka Palestine Action ayaa sheegay in ka badan 40 dibadbax laga qabtay guud ahaan Australia iyadoo dadweyne badan ay ka qayb galeen caasimadaha gobolada sida Sydney, Brisbane iyo Melbourne. ururkan ayaa intaa ku dareen qiyaastii 350 qof oo ay ku biireen banaanbaxyadan oo ay ku jireen ku dhawaad 50,000 oo qofood oo ka qayb galay magaalada Brisbane. Sydney gudaheeda Josh Lays oo ka mid ah qabanqaabiyaasha dibadbaxyada dhigaya ayaa sheegay in Australia ay si xoog leh isugu soo baxeen magaalada si ay u dalbadaan in la joojiyo xasuuqan ka socda Gaza in dowladeena cunaqabateyn ay ku soo rogtay Israa'iil bay yiraahdeen. dibadbaxyaashu waxa ay sidoo kale xoogeysteen kadib markii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu oo ay ku raadjoogto maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC toddobaadkii hore oo hadallo kala duwan uu ku qaaday ama weerar dhanka afka uu ku qaaday dhigiisa Australia Anthony Albanese kadib markii xukuumaddiisa bishan ay ku dhawaaqday inay doonayso inay aqoonsato dowladda Falastiin. xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo sidoo kale Australia ayaa markaasi aad looga deerinayay kadib markii xukuumadda ay hogaaminayso xisbiga shaqaalaha Albanese ay sheegtay inay aqoonsan doonto dowladda Falastiin iyadoo raacaysa talaabooyin hore ay u shaaciyeen Faransiiska, Britain iyo Canada. Australia waxay sheegtay in aqoonsigaasi uu ku xiran yahay ballanqaadyo ay ka heshay maamulka Falastiin oo ay ku jirto in Hamas aysan ka qayb qaadan doonin dowladda mustaqbalka. Australia waxay ku dhawaaqday go'aankan 11 Agoosto maalmo kadib markii 10,000 oo qof ay ka banaanbaxeen ama ay ku banaanbaxeen buundada caanka ee Harbour Bridge ee Sydney iyagoo dalbanaya nabad iyo in gargaar la gaarsiiyo Gaza oo hadda ku jirto olole xasuuq iyo sidoo kale gaajayn ay ku hayaan ciidanka gumeysiga ee Israa'iil. ugu dambeynna warbaahinta dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay in laba gantaal oo difaac cirka oo cusub loo diray Kuuriyada Koonfureed taasi oo uu kormeerayay hogaamiyaha dalkaasi. warkan oo ay faafisay wakaaladda wararka KCNA ayaa lagu sheegay in hubkaasi ay leeyihiin kartida dagaal ee sare isla markaana ay adeegsanayeen teknoolojiyad gaar ah balse faahfaahin lagama bixin. gantaaladan la riday Sabtidii ayaa la sheegay inay cadeynayeen in astaamo farsamo oo laba nooc oo madaaficdu aad ugu habboon yihiin burburinta bartilmaameedyada hawada oo kala duwan sida diyaaradaha duuliyaha lahayn ee droniska iyo gantaalada qumaatiga u socda ee cruise missiles loo yaqaano. tijaabadan ayaa timid saacadoon kadib markii koonfurta Kuuriya ay xaqiijisay in rasaas digniin ay ku furtay ciidamada waqooyiga Kuuriya oo si kooban uga talaabay aagga loo yaqaano demilitarized zone ee kala qaybiya labadan dal. amarka qaramada midoobay ee Kuuriyada markaasi United Nations Command ayaa sheegaya in qiyaastii 30 askari oo waqooyiga Kuuriya ay u gudbeen xadka si xoogan loo ilaaliyo sida ay ku warantay wakaaladda wararka Yonhap. koonfurta Kuuriya iyo Mareykanka ayaa tan iyo Isniintii ku howlanaa tababar military oo ballaaran oo iskaashi ah oo gobolkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu sheegay ama lagu wadaa in uu la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ee Lee Jae-myung Isniinta soo socota shir ka dhacaya Washington. madaxweynaha cusub ee la soo doortay ee Kuuriyada Koonfureed ayaa ololihiisa ballan ku qaaday inuu hagaajin doono xiriirka labada Kuuriya. hase yeeshee walaasha Kim Jong Un ayaa diiday dadaalada dib u heshiisiinta ee dowladda Lee. Kim ayaa sidoo kale horaantii bishan cambaariyay tababarada military oo ay si wadajir u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed isagoo ku tilmaamay kuwo cadaawado badan ee Kenya. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya waxa uu ballan qaaday in uu dadejin doono qorshihiisa lagu kordhinayo kaydka hubka nuclear-ka ee dalka. bishii Janaayo waqooyiga Kuuriya waxa ay ku andacoodeen in ay riday gantaal dhexdhexaad ah oo cusub oo xambaarsan madaxiyad dagaal oo loo yaqaano hypersonic kaasi oo ay ku faaneen inuu si kalsooni u cabsi gelin doono cid kasta oo ka soo horjeeda gobolka Pacifiga. mas'uuliyiin sare oo Kuuriyada Koonfureed ka tirsan ayaa walaac ka muujiyay in waqooyiga Kuuriya ay helaan teknoolojiyadda gantaalada Ruushka taasi beddelkeedana ay ciidamo ugu dirayaan inay taageeraan duulaanka Ruushka ee Ukraine.
haddaba la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee koonfurta Kuuriya ayaa sanadkii hore sheegay in Seoul ay ogaatay in Moscow ay siiso Pyongyang gantaale iyo qalab kale si loo xaqiijiyo loona xoojiyo nidaamka difaaca cirka ee ciidamada. hase yeeshee lama xaqiijin in gantaalada ugu dambeeyay waqooyiga Kuuriya la riday ay ku jiraan teknolojiyadda Ruushka uu sameeyay iyo in kale. waqooyiga Kuuriya waa mid ka mid ah dalalka ugu kaligeed taliska badan dunida, waxaana dalkaasi maamula qoyska Kim oo xukumaya tobanaano sano. koonfurta iyo waqooyiga Kuuriya waxaa markaasi kala qaybiya ama la kala qaybinaya tan iyo markii dagaalkii Kuuriyada dhamaaday 1953 lama saxiixin heshiis nabadeed. taasi macnaheedu yahay inay weli si rasmi ah iyagu cadaawad ay ka dhaxayso inkastoo sanado badan aysan iswada duqeynin. inta ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka. fadlan subscribe inoo saara channelkan la gareeya la wadaaga asxaabtiina.